maanta magaalada Muqdisho waxaa ka qabsoomay shirka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo waliba madaxda dawladaha dariska ah si gaar ah dawladaha ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya waxaana maanta magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay oo ay martigelisay madaxweynaha dalka Djibouti iyo sidoo kale hogaamiyaasha dalalka Itoobiya iyo waliba Kenya hadafka ay u yimaadeen magaalada Muqdisho waxa uu ahaa ka qaybgalka shirka ay iclaamisay dawladda Soomaaliya ee looga arrinsanayay sida ciidanka midowga Afrika ee ADMIS ay qayb uga noqon karaan howlgallada socda maadaama hadda ciidankaasi ay ku kooban yihiin kaliya inay ilaaliyaan goobaha muhiimka ah ee dawladda iyo kuwa gobolada joogo inay markaasi ku sugnaadaan xiriyahooda iyadoo aanay door dhabo ku lahayn howlgallada hadda socda shirkii waa uu soo ilaaday warmurtiyeed ayaa laga soo saaray madaxdiina dalalkoodii ay dib ugu laabteen balse maxaana laga qariyay oo aanan ogeyn maxaase laga diiwaan geliyay shirkan oo dabcan ah shir muhiim u ahaa Soomaaliya marka loo fiiriyo xaaladda ay hadda wajahayaan dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya oo hadda ciidankeeda iyadoo oo dadka deegaanka kaashanaya ay al-shabaab kula dagaalamayaan gobollo muddo ka badan 15 sano ay gacanta ku hayeen haddaba waxaan rabaa inaan dib idin xasuusiyo shirkan waxa uu ahaa shirkii labaad ee burburkii kadib ka qabsooma Soomaaliya oo looga hadlayo arrimaha howlgallada socda shirkii kan ka horeeyay waxa uu markaasi qabsoomay sanadii 2016 xilligaas oo sidaan oo kale laga arrinsaday mandate-ka ciidamada AMISOM markaasi ama ADMIS hadda la yiraahdo laakiin kal hore howlgalkooda uu ku magacawnaa AMISOM haddaba waxaa la sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in shirkan qabashadiisa isagu aragtidiisa ay ku timid madaxda dawladaha Djibouti Itoobiya iyo Kenya oo u bandhigay inay magaalada Muqdisho yimaadaan oo ay kala hadlaan sida ciidankooda Soomaaliya jooga mushaarka faraha badan qaadanaya ay markaasi doorkooda saxda ah u muujin lahaayeen maadaama hadda aanay qayb ka ahayn howlgallada socda madaxweynuhu waxaa la sheegay in shirkii maanta qabsoomay uu diiday gabi ahaanba in laga wada hadlo ama la furo mowduucyo ka baxsan howlgallada socda ee al-shabaab lagula dagaalamayo waxaa la sheegay madaxweynuhu inuu ka diiday si gaar ah hogaamiyaha Kenya in markaasi uu ka hadlo arrimo siyaasadeed oo dabcan labada dawladood ka dhaxeeyay oo xiriirka labada dal dabcan ku qotama keliyana madaxweynuhu waxaa la sheegay inuu markaasi ku adkaystay in laga wada hadlo howlgallada socda waxa arintaasi taageeray sida la sheegay oo shirkana fadhiyay madaxweynaha Djibouti oo isaguna door ama ahmiyad gaar ah siinayay howlgallada hadda dadka Soomaaliyeed ay isaga xoreynayaan argagixisada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xubno shirka joogay waxa ay xaqiijiyeen inuu laba door markaasi hordhigay ee hogaamiyaasha shirka kala qaybgalayay waatan kuwaade waxaa la sheegay madaxweynuhu inuu u bandhigay in ay cadeeyaan mowqifkooda saxda ah iyo inay ka qayb galaan howlgallada hadda ka socda gobolada dalka ee al-shabaab loogu xoreynayo maadaama ciidankoodu ay hadda xiriyahooda ku sugan yihiin oo howlgallada aanay qayb ka ahayn doorka labaadna waxaa la sheegay in madaxweynuhu uu fursad u siiyay haddii aanay ka qayb galaynin howlgallada socda inay gabi ahaanba dalka isaga baxaan waxaa la sheegay madaxdu in ay ayideen qorshaha dawladda Soomaaliya ee markaasi ku wajahan in loo midoobo oo si wada jira loo wajaho argagixisada muddada 15 sano dhibaatada ku haysa dadka Soomaaliyeed waxaana lagu ballamay sida la sheegay oo xubnaha shirka jooga ay inoo xaqiijiyeen in hadda ciidanka Itoobiya ee ku sugan meelo ka mid ah koonfur galbeed Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah Gado ay iyagu halkooda ka howlgalaan oo halkaasi ay ka soo dhaqaaqaan oo ay taageeraan qorshaha socda iyo howlgallada bilowga ah ee Jubbaland meelo ka mid ah iyo koonfur galbeed ba hadda ka socda sidaas oo kale waxaa la sheegay in ciidanka Kenya iyaguna ay jubbooyinka ka howlgali doonaan oo ay taageerayaan ciidamada Jubbaland kuwa xooga dalka iyo dadka deegaanka iyo waliba ciidanka Itoobiya oo halkaasi ka howlgalaya sidaas oo kale waxaa la sheegay in ciidamada Djibouti si gaar ah madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle uu goobta ka ballan qaaday in wixii hadda ka dambeeyay ciidamada Djibouti iyaguna ay Hirshabeelle meelaha ay kaga sugan yihiin ka howlgali doonaan oo ay taageerayaan howlgallada socda ilaa iyo galmudugna ay markaasi howlgalkooda gaarsiin doonaan oo al-shabaab aan loo kala hari doonin waxaa sidaas oo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dabcan bogaadiyay ballanqaadkoodaas mas'uuliyiinta shirka ka qaybgalayay madaxweynuhuna waxa uu sheegay in hadda dadka Soomaaliyeed hawsha ugu adag ee hortaalla ay tahay sidii al-shabaab dalka looga xoreyn lahaa
dhibaatada kaliya ee dadka Soomaaliyeed hadda haysata ama tan ugu weyn ay tahay al-shabaab oo horumar u diiday guud ahaan Soomaaliya gobolladii dalkana dhibaato dheer markaas ku hayay dadka Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada beeraleyda iyo dadka shacabka hiba ay qaybta ka yihiin haddaba waxa markaasi aan rabaa inaan idin la wadaago shirkan waxa uu muujinayaa sida dawladda Soomaaliya si gaar ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi ay uga go'an tahay muddaxileedkiisa in guud ahaan dalka laga ciribtiro al-shabaab oo dabcan iyagu weeraro ka geysta Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka si gaar ah dhinacyada ama qobarada arrimaha dibadda ama siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin waxa muuqata in markaasi siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya ee horumar sameynayso marka loo fiiriyo sida ay danaheeda dawladda Soomaaliya iyadu u eeganayso ama u fursanayso sidaas oo kale waxaan rabaa inaan dib idin xasuusiyo maanta markii ay imaanayeen mas'uuliyiinta dawladaha Djibouti, Ethiopia iyo Kenya markaasi ka socday waxa muuqatay in dawladda Soomaaliya ay u diyaar garowday marka loo fiiriyo sida madaxdaasi ay si degdeg ugu yimaadeen magaalada Muqdisho marka loo fiiriyo in shirkan iclaamintiisa ama qorshihiisa uu soo bilowday isbuucyo ka hor maantana go'aamo heerkan oo kala lagu gaaray oo dhinacyadu ay hadda diyaar u yihiin in markaasi ay u midoobaan howlgallada socda ee al-shabaab ka dhanka ah haddaba dad badan ayaa isweydiinaya al-shabaab oo hadda markaasi ku dhici waayay oo markaa ay gobollo badan ka qabsadeen ciidanka xoogga dalka kuwa deegaanka iyo waliba ciidamada ma taageerada saaxiibada caalamiga ah oo howlgallada socda diyaaradaha dagaalka iyagu ku taageera sidee ay iska markaas u wajihi doonaan ciidamada midowga Afrika ee ADMIS kuwa xoogga dalka dadka deegaanka iyo taageerada saaxiibada caalamiga ah oo iyagu si wada jira u wajaha al-shabaab